kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel walba joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka bandhiga raajada ayo kala aad ka daawataan shashada caalamiga Raja TV qodobo xiiso badan ayna alaabada kugu soo gudbinaa saaka qodobada aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqon doona bulsho lagu gumeysto been iyo quraafaad iyo dhacdooyin la yaab leh oo laga diiwaan galiyay dalkaysa ay tahay barnaamijka ayaa qayb uu ka yahay oo aad ku daawan doontaan sidoo kale waxaad ku daawan doontaan waati haweeneyda xijaaban ee dunida wacdarada ka dhigaysa taariikh lama ilaaban ahna loo diiwaan galiyay oo saaka sheekooyinkan idin soo xulnay ayuu qayb ka yahay sidoo kale waxaad ku daawan doontaan daraasad lagu ogaaday shaqada oo sare jooga ama ataagna lagu qabtaa in ay ka wax tar badan tahay xagga caafimaadka shaqada fadhiga lagu qabto ayaa qayb ka barnaamijkeena sidoo kale qodobada aad ku daawan doontaan bandhiga rajo saaka waxa qayb ka noqonaya xog lagu ogaaday dumarka gaagaaban in ay ka dhalmo badan yihiin dumarka dhaadheer ayaa qayb ka sheekooyinkaasi kuwa kala xiiso badan aan idin ka qarinayo ayaad ku daawan doontaan barnaamijka waxa soo saaray halkan idin kala socodsiinaya anigoo Ashraf Abdulbasid Macallim Xasan Cabdisalaan Axmed Iblaawa ayaa farsamada kaamirada gacan iga siinaya waana mar kale ya barnaamijka bandhiga rajo markale saragta cudun daawadayaal waxa daawatan qodobadii ugu dar corona saaka ee barnaamijka bandhiga rajo markana ayagoo inta ka sii faahfaahsan ku soo dhawaada aan ku hormarna qodobka ugu horeeya ee sheekooyinka saaka waxa uu noqonayaa bulsho lagu gumeyso khuraafaad iyo been sidoo kalena dhacdooyin kale oo loo diiwaan galiyay ee jirta bulshadaas iyo waliba wadanka ay dhacaan ayaana soo qabanaya markaa dalka Hindiya waa dalkay ka jiraan dhaqamo iyo caadooyin la yaab leh oo qaarkood aan qofku rumaysan karin waa dal lo'da lagu caabudo oo aan hilibkeeda lagu cuni karin waana dal haddana kaadida lagu caabudo iyadoo loo arka caafimaad iyo in xanuunada lagaga bogsanayo sida kansarka iyo xanuuno kale oo halisa Hindiya waxa ku nool bulsho aaminsan dhaqan diimeed waxay ugu yeedhaan nagasorosa bulshadaasi ragoodu dharama xidhaan mana maydhaan isla markaana dhammaan timaha ka baxa jidhkooda ma ogola in wax yarna laga jaro waxa kale oo ay raggu ay dhib ku hayaan xubinta taranka ee jidhkooda iyagoo doonaya in aanu dareen yeelan taa oo ay u arkaan dembi nagasuru qofku kuma noqdo waqti kooban waxa uu maraa dariiq dheer oo ay ugu horeyso in marka hore uu noqdo raahib dunida iskaga tagay oo go'doon kaga jira waxa ay aaminsan yihiin in dadka qaarkood ay awood badan yihiin kuwa kale sida awgeedna waa dhaqan adoonsiga wadaadka awood badan leh isla markaana barakaysan iyo si weyn loogu shaqeeyo loogana barakaysta dumarkoodu waxay magaalooyinka yimaadaan marka ay xaflado dhiganayaan iyagoo ay dhar xidhan yihiin dumarkooda ayaa waxa kaliya ay xidhaan maro liimi oo tan ay hinduusku xidhaan ay tahay waxa ayna sidoo kale degan yihiin Himalaya waxayna aaminsan yihiin in webi ku yaala dalka oo lagu magacaabo Ganga uu yahay mid biyihiisu barako leeyihiin waqtiyada ay iidaha sameystaan ay tagaan webiga iyaga oo baahiisa ku dhex dabaasha dhaqamada diinku sheega ee la isku adoonsado waa mid dunida ka jirta meelo kala duwan iyada oo qofku sheeganaya uu u muuqdo mid karaamo iyo awood ka badan dadka kale leeyahay oo qofka qaadan waaya amaradiisa ay musiibo ku dhici doonto islaamkuse waxa uu ka xureeyay adoonsiga caqiido isaga oo ku xidhay Allah subhanahu wa ta'ala iyo in uu kaligii ka cabsado isla markaana aanay jirin qof dadka ku cabsi gelin karaya awoodo dheeraad kaasi oo u muuqanaya in isaga la caabudayo oo hadba arinka uu ka amar
qaadanayo. waa tahay daawadayaal qodobkaas wuxuu ahaa qodobkii ugu horeeyay saaka barnaamijka aad ku daawanayseen markana xubinta xigta ayaanu soo qabanayaaye waxayna noqon doontaa waati haweeneyda taariikhda lama ilaabaanka ah ka dhigaysa dunida aynu dul saaranahay taa oo xitaa si gaar ah loogu sheegay inay tahay haweeney markaasi xijaaban micnaheeduna ay tahay haweeney muslimada. sheekadan ayaana soo qabanaya. Saara waa injineer dhanka dhismaha oo dheer Masar sidoo kale waa ciyaaryahan kubadda kolayga waxayna haatan isku bedeshay garsoore. waxay qarka u saaran tahay inay taariikh cusub dhigto. waxay noqon doontaa haweeneyda ugu horeysay ee xijaaban oo garsoore ka noqota ciyaaraha Olombikada. intaasi oo kaliya ma aha laakiin nooca kubadda kolayga ee ay garsooraha ay ka tahay ayaa kulankiisii ugu horeeyay ka dhacay Tokyo bishan Luulyo. kubadda kolayga ee nooceedu yahay saddex leyda waxay dadku qaar u haystaan inay tahay nooca ugu caansan adduunka ee la ciyaaro. waxaa lagu qiyaasaa in 182 dal in ka badan 430,000 ciyaartoy adduunka oo dhan ay ciyaarayaan kubaddan kolayga ee noocana. Saara waxa ay tiri ka qaybgalka Olombikada waa sida riyada. viruska corona ayaa shaki weyn geliyay in ciyaaraha ay dhici doonaan. waxaanu aad uga walwalsanayn in ay dhici doonto in kulanka ciyaaraha tartankan la wada baajinayo in kale hase ahaatee taa maynaan suurtoobin muddo dheer kadib. ma ahan wax fudud laakiin waxaan doonayaa in aan wakiil fiican u noqdo iyaga sidaa darteed waxaan u sameynayaa sida ugu fiican. Saara waxay caan ku tahay hadalkeeda jilicsan iyo dhoola cadeenteeda. markasta oo aan guul gaaro oo aan u maleeyo inay tahay waxa ugu weyn eebe wuxuu furaa fursad cusub oo xitaa ka sii weyn tii hore ay hadalkeeda ku jiri. xil ciyaareedkii la soo dhaafay waxaa la ii magacaabay inaan dhexdhexaadiyo ciyaar nus dhamaadka ah oo ka socotay horyaalka Masar ee ragga. taasi waxa ay guul kaligeed. xil ciyaareedkii hore Saara waxa ay sii waday dadaalkeedii oo xitaa markii ay garsooraha ka ahayd finalka koobka Masar ee ragga ee kubadda kolayga Afrika. kuwaas waxa ay qayb ka noqdeen shaqooyinka ugu adag ee ay soo marta. inkasta oo Saara ay guulo dhawaana gaadhay haddana socdaalkeedii ay ku gaartay Olombikada wuxuu ahaa mid dheer. waxa ay ku bilaabatay iyada oo gabadh yar ah waxay daawan jirtay walaashid ka weyn oo ciyaaraysa kubadda kolayga isla markaana ku wehlinaysay kulamada tababarka. iyada oo 5 jir ah ayaa Saara ay bilowday ciyaarta markii 15 jir ahaydna ciyaar ayay garsoore ka noqotay. muddo 8 sano ah Saara waxa lab iyo dhidig bay u ahayd garsoore. Saara ayaa sheegaysa in dhammaan guulahaasi oo dhan uu Allah u fududeeyay dhammaan waxaasi oo dhan. Saara waxay sheegaysaa in diinteeda ay aasaaska koowaad u tahay guusha alaaba ay gaadho. waxa ay sheegtay in haweenka garsooryaasha ay dalkooda jooga ay inta badan warqad u soo qoraan iyagoo sheegaya inay u maleynayaan inay fursad u heli karaan inay ka qayb galayaan tartamo waaweyn ama inay adduunka oo dhan ay u safraan. waxaan u sheegay in ay aniga iga fiicnaan karaan. waxaad ku guuleysan kartaan himilooyinkiina oo dhan ayaan ku yiri bay ku jiri qoraal ay Saara barteeda u adeegsatay. taasi waa waxa ay rabto in gabdhaha yaryar ee muslimiinta ee daawanaya iyadoo adduunku ku baahsan yahay ay ku haminayaan guusheeda maadaama ay iyagu arkaan. waa tahay weli waxaad daawanaysaan barnaamijka bandhiga rajo oo sheekooyin xiiso badanna waa inoo soo socdaan. qayb dhexe barnaamijka ayaana ku sii saqaynaa daawadayaal. waxaan soo qaban doonaa sheekada xigta. waxayna noqonaysaa daraasad ayaa lagu ogaaday shaqada oo sare jooga ama taagnida lagu qabto in ay wax badan ka tarto xagga caafimaadka. sheekada ayaa inoo xigta. daraasad dhawaan lagu sameeyay dalka Ingiriiska ayaa daha ka rogtay faa'iido ballaaran oo ku jirta sare jooga ama taagnida oo maalintii ugu yaraan 1 saac uu qofku ku qabto shaqada uu qabanayo maalinlaha. taas oo lagu ogaaday in ay ka hortagi karto xanuuno badan oo ka dhasha fadhiga xad dhaafka ah ee qofku fadhiyo maalintii saacado badan oo ka mid ah xilliyada shaqada. daraasaduna oo ay sameeyeen khubaro ku takhasusay dhanka caafimaadka ayaa waxa ay ku sheegeen in ay ku tijaabiyeen dad hawlwadeena ah
oo shaqooyin adag oo xafiis iyo kuwa guri isugu jira hayay taas oo ay ka soo baxday natiijo tilmaamaysa in sarajooga oo howlaha shaqada lagu qabta ugu yaraan 1 saac ama in ka badan maalintii ay kordhinayso firfircoonida qofka iyo in uu dareemo fudayd badan oo u suuragelin kara inuu shaqada muddo badan ku jiro Professor Kevin Venton oo sheegay in daraasada hore loo sameeyay oo ku saabsanaa xanuunada ka dhasha fadhiga badan ee xilliyada shaqada lagu ogaado in ay ka hortaga u noqon karto iyada oo qofka uu ka qayba kamid ah shaqadiisa maalinlaha uu ku qaban karo qaab sarajooga ama taagnida waqti yar oo kooban waxaana uu sheegay qabiirka hogaaminaya khubarada daraasada sameysay in daraasadoodu ay ku ogaadeen in haweenku waqtiyadu ay ku guda jiraan shaqadooda maalinlaha ee guriga dhexdiisa ay inta ugu badan shaqada ku qabtaan qaab sarajooga isaga oo tusaale u soo qaatay xilliyada haweenku ku jiraan goobaha cuntada lagu kariyo taasina ay daliil u noqon karto howlaha badan oo qaarkood ilaa xataa ay adag yihiin inay fududaato maadaama ay sarajooga ama taagni ay ku qabtaan shaqooyinkaasi daraasada oo dhawaan la soo bandhigay waxa kale oo ay tilmaamaysaa in xanuunada ka dhasha fadhiga ee xilliyada shaqada dhexdeeda ay ka mid yihiin dhabar xanuun kaliya xanuun caajis daal badan iyo arrimo badan oo kale oo khatar u keeni karaya caafimaadka shakhsiga ugu dambeyntii khubarada daraasada sameeyay waxa ay ku taliyeen in dadka xilliyo badan oo maalintii ay qabta shaqooyin adag ay ka taxadaraan fadhiga badan waxayna ay khubaradu ku taliyeen in jimicsi iyo dhaqaaqa kooban qofku sameeyo xilliyada uu ku guda jiro shaqada taa oo ka hor taga fiican u ah cudurro ay keeni karaan fadhi badan oo bilaa xarakad ah oo lagu shaqeeyo waa tahay daawadayaal qaybihii dambe ee barnaamijka ayaanu ku sii siqaynaya qodobka ugu dambeeya ee sheekooyinka saaka bandhiga rajo aad ku daawanayseen ayaana soo qabanaya markan waxayna noqon doontaa xogka lagu ogaaday in dumarka gaagaabani ay ka dhalmo badan yihiin dumarka dhaadheer oo iyana sheeko xiiso badan hayto saaka qodobada aad ku daawateen barnaamijka ayaana ugu dambeeya waan soo qabanaya دراسات عصوب ay soo wada saareen jaamacadaha Harvard iyo Oxford University ee dalka Mareykanka ayaa lagu sheegay in dumarka gaagaaban ay ka dhalmo badan yihiin kuwa dhaadheera daraasadana waxa ay cadeysay in dumarka gaagaabani ay inta badan u xidhan kabo ay isku dheereeyaan dhinaca guurkuna ay kaga badan yihiin kuwa dhaadheer in kasta oo aanay daraasadu sheegin sababta ay nasiibka badan ee xagga guurka ay ku helaan Dr. Daniel Netelo isna aqoon-yahana ka tirsan jaamacadda Open University ee dalka Ingiriiska ayaa cadeeyay in sababta dumarka gaagaabani ay uga dhalmo badan yihiin kuwa dhaadheer ay tahay in badankood ay isu dhow yihiin waqtiga ay caadada helaana waxa kale oo ay daraasadani cadeysay in dumarku dhaadheeri ay kaga badan yihiin kuwa gaagaaban qaadida xanuunka kansarka iyada oo kuwa gaagaaban la sheegay in ay kaga badan yihiin xanuunka wadna xanuunka waa tahay daawadayaal qodobkaas ayaa qodobka ugu dambeeyay saaka barnaamijka bandhiga rajo sheekooyin xiiso badan ayaan filayaa inaad markaa ku daawateen oo aad sheekaga bogateen barnaamijka ayaan jeclahay guud ahaanba inaan halkan ku soo gabagabeeyo barnaamijka waxaa soo saaray halkan idin kala soo codsinayay anigoo Ashraf Abdulbaasid Macallim Xasan farsamada iyo kaamirada waxaa gacan iga siiyay Cabdisalaan Axmed Iblaaw intaanu barnaamij ciinkan oo kala ku kulmi doono nabadgelyo